الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. waxaan kusoo dhex jirnay sixir al-maxaba qaybihiisa ugu dambeeyay waxyaalaha keeni kara in la isoo sixiro ama sixir al-maxaba la isku soo biyo waxaan dhahnay way fara badan yihiin marka hadda waxaan baraynaa nasaaix sixir al-xalaal ina mataqana sixirkii xalaasha ahaa u banaana ninka u banaana gabadha لأن إن الاستعلاض ووح من الدين إلهي بان القرآن كيسا سبحانه وتعالى كل شيء وحاوي نبينا صلى الله عليه وسلم مع مرض قيسك إن لو ناجي أيون غبوري مركا محابنان قبل مسلمة أو وقت ينجوكت وحاوبنان on loo soo gudbinayaa inay wadaadkeeda sixirul xalaal ku sixirato maxaa kamid ah in ay aad isku qurxiso iswanaajiso ishiisa ay ku dhicin wax xun sankiisana uuna urinin wax xun ilaa wax wanaagsan oo udgaaya ma oge haye gabadha ama wadaadka markii gurigiisa soo galaayo in uu qoslo laana waxa jiro oo u badan meeshaas rag fara badan waxa jira markii gurigooda soo galayaan xanaaqsan way xanaaqsan ayuu xanaaqsan بالابتسامة المشرقة ها دول عادين إفايسا أيا لغا ربا إن هذا الكيس يعاديسته ما تقناي قلبي فرتو حيدها سومالده قول فران لما قال لك قلب فران يا لغلا هاي وبالكلمة طيبة إيوه هذا المناكسن هذا اللذا سوجيد السدالة إن لابد إن نعوى لغربه قلفنانتي أعضيقنا لسخير عليه حسن المعاشرة ما تقناي وانا واحد النبي صلى الله عليه وسلم حويري ninka ugu khayr badan cidiisa ayaa ugu khayr badan aniga aan cideeda ugu khayr badan nabi sallallahu alayhi wasallam hawsha guriga ayuu wax ka qaban jiray sallallahu alayhi wasallam ku salli xabiibkeena gabadha inay ilaaliso ninka maalkiisa nafteedana ilaaliso ragga mataqana ajaanibteena ka ilaaliso laana عائشة رضي الله عنها أيا لو ويديه وحالي عايشة محاوفي عن قبر وحيت إن النين أجنبي كي ونا أركن إني لقص الشيء إني متغناي وحسوي دارسان حاجة إسكابدي إني أركن بفي عن بيتر مرك أنت إلى كرتو وبني آدم بتبشر بتهي لك أنت إلى كرت إلى لك هو حنا عادي أخلي جنة هذا أيضا وحكين نساء waxyaalaha ma taqaanay jaceelkii inuu ninkii kugu kalsoonaado ama gabadha inay kugu kalsoonaato waxa weeye waxyaalaha aad ku wanaagsan weeyo inuu ninka saddex qabo ama halkiisa ma taqaanay qof walba ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu ma taqaanay waxa la rabaa uu ka adigoo laba qabo ayaad cadaalad u suubin kartaa xabadana ay u kala goyn kartaa adoo saddex qabo ayaad cadaalad u suubin kartaa marka waxa weeyo daacadnimada iyo wanaag isma qariyaan waa laga arkay waxa weeye gabadha inay caruurta si fiican u ilaaliso nadaafadooda cuntadooda nidaamkooda laana waxyaalaha la isku jeclaado ay ka mid tahay ninka ilmihiisa qurux badan haduu arko ama gabadha ay ka aragto aduu ilmihii ku dadaalayo isticmaalana wada qof gabadha waxay leedahay Allah maxaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nin wanaagsan Ilaahay sii ninkan wuxuu leeyahay ilmaha quruxda badan gabadha diyaarisay Allah muxuu Ilaahay naago wanaagsan sii waa la sii jeclaan maxaa ma qadaraya marka sixirul xalaal baa badanayo wa husnul inaayati bihim ilmihi ilaalintooda wada haye in la is adeeca labada dhinacba tii hore maxaan dhahnay daacatul amiya wa ma taqaanay is adeecitaan in dara waxa kan waa ku caadi
wixii ilaahay macsiidaas aan ahayn la isku adeeco wixii ilaahay xaraan ka dhigay waliba qof ku adeecin لأن خالق wax خالق ka caragelinayo makhluuq laguma adeeci karo waa xaraam haddii aan fiirino marka xaaladannada hadda mujtamacannaga bulshadannada waxaan arkaynaa marka xaalad cajiib islaanta waa isqurxinaysaa dhar qurux badan bay xiranaysaa mataqaanaa way baxaysaa aroosaday aadaysaa saaxiibayaasheeda qaarkeeda soo booqanaysaa habeenkaas waxaa weeyo carabteeda ayada iska daayay dariskeeda fahmay aad bay isku qurxinaysaa dharka ugu qurux badnaa xiranaysaa dharka sidaas yaa soo gaday ninkii waa soo gaday dharkii way qabanaysaa markay meesha ka keento meel bay ku ridaysaa dhar kale caadi ay iska xiranaysaa ninkeedii miskiinka ahaana halkaasuu iska fadhiyaa haye dhar iska tabcaan ay mataqaanaa kuwii kula joogtaa oo iska qadiim ahoo mataqaanaa jikadii iyo basasha iyo toonta inay kasoo shiirayaan laga yaabo gabdhaha waxaa la rabaa gurigooda an hadday carabtaas ka baxdo qolka ama dhihinba guriga qolka hurdada ayadii wadaadkeeda hadday ka baxdo xaaraan bay noqonaysaa maxaa loogu talagalay carabtaas iyo quruxdaas iyo dharkaas quruxda badan qolka loogu talagalay annaga marka waa bedelnay bannaanka u bixinna xalfadahan geeni guryaha saaxiibadan geeni guriga saaxiibtaa waxaa jooga nin baa jooga ya ninkaas muxuu dhihi bismillah walaani naagba ma hayste islaantan caraf badana oo dhar qurux badana ya maxay fidnaysa marka saaxiibteeda hataa ninka way ka fidnaysa laakiin xaaladdeeda dhabta ah ma allahu bihi caliim ilaahay baa garan jikadii iyo basashii iyo toontii baa joogta gurigeedii marka waxaa weye xaaladda hadda jirtay ka mid sixrulmaxaba marka waxaa ka mid ah hadday marka gabadh caqli yeelan lahayd isha bini'aadamka ku dhacayso uma fiicno wadaadkeedii mataqaana sixir xalaal ayuu u noqonayaa waxay noqonaysaa gabar mataqaanaa ilaahay raalli ka yahay oo waxay suubinaysa ilaahay baa raalli ka yahay laakiin tan kale ilaahay raalli kama aho waxyaalahaas oo dhan ayaa dhacaya marka ninkii maxaa laga rabaa asagana waxaa laga rabaa markuu magaalada ka imaado inuu qabayska ku bilaabo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku bilaabi jiray islaantaada waxay kugu jeclaanayso waxa ka mid ah nabiga markuu guriga saan u soo galo wuxuu ka bilaabi jiray caday inaad caday ka bilowdo inaad farxad ka bilowdo isfurfurto haddaad tahay dabeecad xunta isfurfur isqurxi adigana sida adiga in isku qurxiyo aad u jeceshahay adigana isku qurxi marka gabadha mataqaana haddii aqli ay yeelan lahayd waxaa weeyo guri nadiif ah iyo mataqaanaa iyo gogol nadiif iyo cunto wanaagsan waxyaalaha waxaa weeye ka mid ah inuu qofkii noqdo qof ilaahay subxaanahu watacaala raali geliyay sixir xalaal marka aan iska dhammaynaya sixir xalaal waxaa weeyo waa ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisu qofku helayaa fi tajamuli zawj inuu ninka naagtiisa isku qurxiyo ama naagta ninkeeda isku qurxiso waa daacad ilaahay وإعانته على غض البصره متقانا وحين أو كلمين سجوده إنه نكين دي سلا حرانت إلهي كبد باديو إنه متقانا جورجيس جور كسر درجي ونقطة حق عنده حق جرهان حق قلبي حق الشهوة ولكن يتشبه ويتلف عليه من حرم عليه في عقلية هذا كلمات فإنها قمينة مركز غف وحافي عن كلموين كان قالي إنه متقانا ولايه وقوليس كضبقه محل سو علاجيه وحيالها سو علاجيه waxa kamid ah oo sixir maxaba la iska cilaajiyo quraanka ilaahi subhanahu wa ta'ala suratul baqara suratu taghabun bismillahir rahmanir rahim
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آيات سورة البقرة فاتحة تضوجر إنه إسكو أخريه ومركا هدي آيات قفك لو أخريه إنه قفك دعاء لغيابا إنه قفك حنون دريما لغيابا إنه فرحة خلينا يقرقريران مدى حنون إنه دريما إنه خدريما حق اللابت عريدي عراش إنه متغانا وريك خدريما هدي الشحر كل عبسية إنه متغا لغيابا أحيانا سؤالنا نحاول علامات كمته هذا شيء قوة عدد أخرين كنا شيء قوة أخرية أيضا شيء قوة أخرية سورة التغابن متغنى فاتحة الضوء سورة البقرة كامل فإن سعر بالألم في المعيد هذا مركز خدر حنون حق عرشة أما أودر ما للابا فقروا عليه هذه الآيات مركز آياتها على أخرنا بيو هذو بيو زمزم هذه كلنا وديار مركا وحاول إن شاء الله تعالى مركا فقد بطل سحر مركا سحر كوفدو ما تجا واحد جوزان أم واحد مذو وما تغنى وما تجا أم واحد ما تغنى عجارة ضو ما تجا سحر كوابور والحمد لله مركا بيها سحر عباية صدح أسبوع هذو خاصي بديان وديار يعني تهليش ذاتك سو مالي دق كجرو وأنا صدح أسبوع عبد صدح أسبوع بقردان أيضا سورة التغابن هذا سوء أخرية وإنه سوء أخرية وبالتالي لو طفى أما أسرع طفته ومتى أنا صدح أسبوع عبه حتى يبدل السحر إلى سحر كأبوره وحوك له آخرنا أيضا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون تضوى أخرنا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون تضبجر أخرنا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى تضبجر أخرنا آية كرسي تضبجر أخرنا تقرأ هذه الآيات على الماء يتكو أخرنا صدح أسبوع إلى أفر أسبوع آيات أخرنا بعد عبيسة بها ملاحظة وحال إخفاء على المرأة لأنها haddii ninka ay gabadha ka sheegsan tahay ama hadduu ninka gabadha ka sheegsan yahay qiraa'adan iyo waxaan wad ka qarinaysaa qofka aad ka sheegsan tahay oo inuu wax kugu suubiyay aad u maleynayso ilaana waxa la yiri qof weyn meesha laga gaaray waa ogi Soomaalidu waxay leeyihiin nin weyn geeriso og yahay waad ka qarinaysaa ilaana waxa laga yaabaa qofka inuu sixir tajdiid suubiyo waad furfurmaysaa waxbaad isku arkaysaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay qof walba ha caafiyo aad iyo aad baa mahadsantihiin